والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إلى ما هذا halkan soo keenay maanta oo aynu ku falanqeynayno arrimo la xiriira xog isweydaarsi wax kaloo ma hadalnaa culimada caasimada Hargeysa culimadu way kala duwan fara badan yihiin laakiin inta maanta halkan nagala soo qayb qaadatay sida wanaagsan ee aad noo soo ajiibteen arrinteena ka dalbanay ahayd inaad nagala soo qayb gashaan bal cilmi isweydaarsi ama xog isweydaarsi dhinacayaga iyo dhinaciina oo ku saabsan bal sidii loo xakameyn lahaa la iska kaashan lahaa xanuunkan sii fidaya HIV/AIDS-ka waxaan filayaa saakay laimika waxaad bal xaggeega aan doonaynay ujeeddadii waxay ahayd anigoo ku hadlay commissionka AIDS in bal aan helno hadday tahay culimo hadday tahay dadyo kala duwan saxaafadda hadday tahay bulshada qaybaheeda kale macallimiinta hadday tahay jaamacadaha in bal cid walba aan ku tuhmayno inay nagala qayb qaadan karto sidii looga wacyigelin lahaa bulshadeenna in aanu gaadhno marka dardargelintii waxay ka mid tahay aan commission ahaan aan qaadnay oo aan ugu talagalnay bal muddada dhaweedeen la wareegnay xilka inaan abaarno bulshada qaybaha kala duwan ee waliba sida fiican loo dhageysto waxa ka maalin weyday culimadu inay lambar kow ka yihiin meelaha nagala qayb qaadan karana wacyigelinta ay yihiin bulshadeennuna inta u badan dadka loo dhegan nugul yahay ee la dhageysto iyagoo khayrkooda ka sokow ay ummadii kalgacayl badan ay u hayso ama dhalinyar ha ahaato ama dad waaweyn ha ahaato waxa ay farayaanna ay tahay dee wixii waxyigii alle iyo qur-aankii iyo khayr ay dadka ugu yeedhayaan inay saa tahay marka waxa laga maarmaan noqon weyday in horta bini aadanka isaga is control kara laakiin sababta loo control tahay in horta iimaankiisa la dhiso waa ogtiin oo 13 sano nabiga kaleey salaam markii la joogay in waxa la dhisay iimaankii asxaabta si haddii in case hadoo xataa la waxa aamina ilaahay baa kala xisaabtamaya si ay ilaahan loo sheegay ay u fahmaan oo u kartaan marka waan ognahay bini aadanku ama wuxuu arko ama waxan oo maqlayo umbu ka ficil qaata marka in horta wax kama in iimaankii dadka laga qayb qaato in la dhiso si qofkii hadii la arkayo hadaan la arkaynba aw wixii wanaagana u fari karo samayn karo wixii xumaana aw iska joojin karo kaasi ay ahayd in horta commissionkii iyo culimadii ay gaadhaan walow intiina halkan joogtaa ay de number yar aan ka noqonayna marka loo eego wadanka dhan culimada joogta laakiin hadda se waa bilow wax walba bar bilow ayuu ka bilaabmaa in annana aanan noqon saad ku taliseenba qolo mar la araga oo intay hal mar wax isku inta la kala tagay laakiin wax noo qorshaysan inaan sameeyno barnaamijyo aqoon isweydaarsi caynkana oo aan idinkana wixii idinku jira ee tala ah qaabka wacyigelinta loo sameyn karo saad noogala qayb qaadan kartaan ugu habboon inaan idinka helno ama bil kasta ha noqoto inaan mar la kulmo ama labadii bilood ha noqoto laakiin in la wado ayaa naga go'an xiriirka culimada iyo commissionku ay leeyihiin inuu dheeraado maadaama ayna ahayn dee waajib keliya na saaran annaga laakiin waajibkani waa waajib saaran bulshada inteeda kale waxaan idin sheegay 2 cisho ka horna halkan oo kale waxaan isku nimidnay bahdii saxaafadda oo iyada laftigeedu ah meelaha warbaahinta ama culimada ha noqoto ama cid kaste laga sii daayo in iyagana aanu ka tababarno khaasatan kelmadaha la isticmaalayo ku habboon aan dadka ku abuureen naxli ama dadka cabsi ku abuureen ama aan ku abuureen in dadkii lagu sameeyo la daadufeeyo ama discrimination lagu sameeyo kelmadaha markay adeegsanayaan ama dadka la nool xanuunkan
marka la sheegay waa runtiinoo wadamada Afrika iyo aad buu ugu badan yahay sidii khubarada halkan joogtay noo sheegtayna waxyaabo loo ictiqaadinaya ama ahaato saboolnimada ama ahaato iyagoon lahayn ilbaxnimo dheeraada waxyaabo badan baa ka qayb qaadan kara kuwa ugu muhiimsan waxa weeye had iyo jeer in qofku caafimaadkiisa la socdo muddooyinka dambena waxaad moodaa in la yar wada cabsado qof walba isleeyahay war waxaad iska qabta waad iska qabiyeen nagada waxba isbaani maaye oo cabsi jirto waxaan idiin sheegayaa iminka wadamada waxa ugu daran marka qofka haddii xanuunkaaga la ogaado waxa ugu daran hargab baa ugu yar sooma hargabka markaad dareento inuu hargab yahay markiiba waxaad sameen ama liin dhanaan tuujiso dawo dhaqameed samee ama farmasiga tagoo paracetamol yar cun ama waxaas markaasaad tallaabadii qaadaysaa aad kaga hortagi lahayd isku daweyn lahayd laakiin haddaad ogaan weydaba inuu hargab ku hayo in TB ku hayso in xanuun kale ku hayo marka ma garan kartid dawo noocayaad qaadanaysa marka iminka waxaan ku gubaabinaynaano bal in la istaskareeyo oo la eego caafimaadkaaga si generally ma aha xanuunkan kaliya laakiin aad mar walba la socotaa waa arrin muhiima si waxa laga yaabaa badankeena dadkeena waxaan iska wada nahay bukaan socod ilaahay ha inoo gargaaro runtii waana arrin wanaagsan waxaan gubaabinaynaa in idinka nagala qayb qaataan sidii la isku ogaan lahaa bal horta dhiigaaga in la ogaado sababta lagu ogaanaya wax kale ma xataa in haddii dhiig shubid ay jirto kale waxyaabo kale lagaga faa'iideysan kartaa dhiigga noocaaga ogaato waxa laga yaabaa in dhiigaga qaar ay waddanka ku yar yihiin laga yaabaa in jaan lagugu faa'iideysto laga yaabaa dadkaa badana isjeegray in qaarkood laga helo si ogaansho la'aantaasi ayna u keenin inaad dad kale qaadsiiso